Dad badan waxay isweydiinayaan haddii waddan uu dagaal ka dhaco oo la isku weeraro gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sidee ku soo gali karaan waddankaas diyaaradaha rakaabka iyo kuwa xamuulka sida. Sidee diyaaradaha loogu duuliyaa hawada dalalka colaaduhu ay ka socdaan sida Bariga Dhexe. Tan iyo markii weerarka Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran 28kii bishii Febraayo, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ayaa dul marayay hawada Iran iyo gobolka Khaliijka. Sidaas darteed maamulayaasha hawada oo loo yaqaano air traffic controllers ayaa mashquul ku noqday inay ka leexiyaan diyaaradaha rakaabka wadooyin ammaan ah. Khariidad muujinaysa raadadka duulimaadyada ayaa sidoo kale tusinaysa sida ay mashquul ugu tahay hawada ka sarreysa Egypt iyo Georgia oo ah wadamada ku yaala Bariga Yurub. Maamulo kasta waxa uu mas'uul ka yahay qayb gaar ah oo hawada, isagoo isla markaana la xiriiraya asxaabtiisa si ay ugu wada shaqeeyaan diyaaradaha oo soo galaya ama ka baxaya. Xaaladda caadiga ah, hal maamulo ayaa la tacaali kara 6 diyaaradood markiiba. Si kastaba ha ahaatee, xilliyada dagaalka tiradaas way laba jibaarmi kartaa. War degdeg oo hadda soo baxay Mareykanka oo muwaadiniintiisa caalamka oo dhan digniin u diray. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa si rasmi ah u soo saartay digniin cusub oo loo dirayo muwaadiniinteeda caalamka oo dhan kadib xiisadaha sii socda ee Bariga Dhexe. Fariin waaxdu ku baahisay barteeda X ayay ku boorisay muwaadiniinteeda Mareykanka inay ka foojignaadaan si gaar ah caalamka oo dhan, gaar ahaan Bariga Dhexe. Fariinta ayaa u qorneyd xiritaanka hawada mararka qaarkood ayaa sababi karta carqalad ku ah xarumaha diblomaasiyadeed ee Mareykanka ayaa ku jiraan kuwa ka baxsan Bariga Dhexe ayaa la beegsaday. Sidoo kale waxa ay sheegtay kooxaha taageersan Iran ayaa beegsan kara danaha Mareykanka ee dibadda ama goobaha dhexdeeda Mareykanka iyo muwaadiniintiisa caalamka oo dhan. Dad badan ayaa maalmahan ayaa weerar xooggan lagu qaaday, taas oo ay dad badan la fajaceen. Haddaba sidee ay wax ugu dhaceen magaalada Dimona ee Israa'iil ee meel u dhow xarunta nuclear-ka kadib weerarkii Iran ay ku qaaday Israa'iil? Weerar gantaal oo Iran fulisay ayaa ka dhacay magaalada Dimona ee koonfurta Israa'iil, taas oo u dhow xarunta nuclear-ka ah. Hay'adda caalamiga ee atomikada adduunka ee IAEA ayaa sheegtay inaysan wax war ah ka helin waxyaabaha soo gaaray xarunta cilmi baarista ee nuclear-ka ee ku taala meel qiyaastii 13 kiiloomitir dibadda ka ah magaalada Dimona. Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in weerarku uu ahaa jawaab ka bixin weerarka la sheegay in lagu qaaday xarunta nuclear-ka ee Natanz ee Iran horraantii Sabtidii. Ciidanka militariga Israa'iil ayaa sheegay in howlgallada militari ee ka dhanka Iran iyo Xisbullah ay sii socon karaan toddobaadyo kale oo dheeraad ah. Afhayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa warbaahinta u sheegay in ujeedada howlgalladan ay tahay in si tartiib ah loo daciifiyo nidaamka argagixisada. Ayuu leeyahay ciidanka wuxuu filayaa in uu la kulmo dagaal toddobaadyo kale oo dheeri ah, ayuu sii raaciyay. Waxa uu intaas ku daray in Israa'iil aysan ogolaan doonin wax isku day khatar gelin kara amnigeeda, isla markaana howlgallada militari ay sii socon doonaan ilaa hadafka aan ka leenahay aan ka gaarna, ayuu sii raaciyay warbixintiisa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa caadeystay maalmahan inuu hanjabaad culus u diro Tehran. Dhinaca Iran iyagana waxa ay sameynayaan jawaab celin, gaar ahaan ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran. Mareykanka haddii uu sameeyo gacan qaad gaar ahaan ku saabsan xarumaha halbowlaha, iyagana waxa ay sameynayaan ciidanka ilaalada kacaanka ee Iran inay meel xanuun badan ka taabtaan Mareykanka iyo xulafadiisa. Haddaba arrinta la yaab kale, qiyaastii 24 saacadood ayaa naga xigtay waqtiga kama dambaysta ah ee uu qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, kaas oo ku saabsanaa inay Iran dib u furto marinka Hormuz oo ka mid ah marinada mashquulka badan ee maraakiibta shidaalka ee caalamka ay adeegsadaan. Trump ayaa shalay qoray bartiisa Truth Social-ka in uu Mareykanka baabi'in doono xarumaha korontada ee Iran haddii Tehran aysan si shuruud la'aan ah dib ugu furin marinkaas. Tehran ayaa iyana ku celisay inay baabi'in doonto goobaha shidaalka ee ku xiran Mareykanka ee gobolka Khaliijka haddii la weeraro xarumaheeda. Dhinaca kale, Israa'iil oo baqdinteedii ku sii jirto, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ogaadeen gantaalo laga soo tuuray Iran oo ku soo wajahan bartamaha Israa'iil, taas oo keeni karta in la maqlo qaylo-dhaanta qalabka digniinta ee gudaha Israa'iil. Mas'uuliyiinta militariga ayaa xaqiijiyay in nidaamyada difaaca ee hawada hadda ay shaqeynayaan si ay u joojiyaan khataraha halkan ka dhalan kara, halka dadka deegaanka lagu wargeliyay inay gudaha u galaan meelaha la ilaaliyo
ilaa ogeysiisyo kale laga soo saaro. Dhinaca kale, arrimo la yaab leh ayaa soo baxaya. Wargeys Mareykanka ka soo baxa ayaa waxa uu ku warramay in ciidanka Mareykanka ee ku lugta lahaa dagaalka Iran uu kordhay walaacooda iyagoo ka cabsi qaba culayska amni darro iyo ujeedada dagaalkan aan si cad loo fahmin. Qaar ka mid ah askarta ayaa wargeyskan u sheegay in uusan jirin qorshe cad oo dagaalkan la xiriira, halka askari kale uu ka digay in haddii dagaal dhulka ah lala galo uu noqon karo musiibo weyn. Askar badan ayaa su'aal gelinayo sababta dagaalka, kuwaas oo qaar ka mid ah ay leeyihiin ma doonayno inaan u dhimano Israa'iil, mana doonayno inaan noqono qalab siyaasadeed oo la adeegsado.